kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group oo adaalaba ka daawan jirteen warbixinadii ugu dambeeyay ee xasaasiga ah ee markaasi ka dhacaya Soomaaliya iyo caalamkaba. fadlan daawada haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee boggeena YouTube adigoo muuqaalkan aan ka bixin subscribe saaro daawade gambaleelkana furo si aad markaasi u noqotid daawadayaasheeda ee warbixinada aan halkan ku soo tabino kumaasari. maamulka ahlusunna wal jamaaca ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay faragelin xoogan ku maamulayso doorashada Galmudug ayna ka baxeen doorashada Galmudug. sidoo kalena waxa baraha bulshada maalmahan la isla dhexmaraya fanaan caan ah oo lagu soo qabtay inuu kamid yahay al-shabaab iyo hay'adda NISA oo soo bandhigtay fanaankaasi. aynu ku horeynay daawadayaal madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kamid ah hoggaanka ahlusunna ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay faragelin ku dhisan qaab xoog ah ku maamulayso doorashada Galmudug. wararka soo baxaya Sheekh Shaakir ayaa lagu sheegay in afduub lagu sameeyay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka laguna amray in la magacaabo gudoomiye uu afduubo dowladda federaalka doorashada Galmudug iyagoo guddiga sharciga ah uusan u dhamayn. sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in qaabka dowladda federaalka Soomaaliya ku maamulayso doorashada Galmudug ay abaalmarsan tahay in la wada dhisto Galmudug loo dhan yahay. wuxuu sheegay inaysan ka qayb ahayn doorashada boobka ay ku doonayso dowladda federaalku in maamul looga dhigo Galmudug. sidoo kalena daawadayaal dhacdada la yaab kale isbuucan baraha bulshada iyo maalmahan Soomaalidu isweydiinaysay ayaa waxaa kamid ah in uu la qabtay fanaan kamid ah ururka al-shabaab. hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa habeennimadii 21 Janaayo baahisay muuqaal uu ka soo muuqday Abshir Gaarane Axmed. Abshir oo qayb kamid ah hees uu qaaday la soo raacay muuqaalka ayaa ka tirsan kooxda fanka ee gobolka Banaadir si gaar ah mas'uuliyiinta kooxdaasi. sida uu ku sheegay muuqaalka, Abshir oo u muuqda mid leh cod halaasi ah ayaa qirtay inuu kamid yahay dagaalamayaasha hubeysan ee al-shabaab. sanadkii 2013 ayuu qabuulka laga qaaday inuu si rasmi ah uga mid noqday maleeshiyaadka gacansaarka la leh shabakadda argagixisada ee al-Qaacida. qoraal kooban oo ka soo baxay NISA kaasoo nuqul kamid ah uu arkay gow ayaa lagu sheegay in loo gudbin doono hay'adda garsoorka. Abshir Gaarane Axmed oo ka tirsan kooxda fanka gobolka Banaadir una qaabilsanaa argagixisada al-shabaab xuraanka iyo maaliyadda ayaa dabagal dheer kadib NISA gacanta ku soo dhigtay iyadoo loo gudbinayo hay'adaha garsoorka ayaa lagu yiri nuqul ka soo baxay. tani ayaa xoojinaysa sheegashooyin badan oo bilooyinka la soo dhaafay xoogaystay oo ku saabsan in al-shabaab ay ku dhigax milantay hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya. waa kuma Abshir Gaarane Axmed. Abshir Gaarane Axmed oo ka soo jeeda gobolka Goday ee koonfurta Soomaaliya ayaa sida uu ku sheegay dhowr wareyso oo si warbaahinta maxalliga ee Muqdisho fanaanka la xag jiray ayaa lagu warramay inuu xogayo u ahaa Shamsam Cali Macallim oo agaasimaha waacda dhanka fanka ee maamulka gobolka Banaadir. qabashadiisa ayaa la fahansan yahay inay tii markii uu soo afar muuqay ilka case macallinkii dilaaga noqday ee dhawaan ka soo muuqday telefishinka qaranka. hay'adda nabadgelyada ayaa la warwariyay inay baaritaano ka wadaan fanaaniin kale oo la xirxiray markii ciidamadu ku duuleen hooy ay ka deganayeen Boondere. eedeysanaha ayaa la tibaaxay inuu si kumeel gaar u qabtay xilka madaxa maaliyadda al-shabaab ee gobolka Banaadir isla markaana uu bixin jiray gunnada dilayaasha. fadlan daawade nagu dhiirigeli subscribe si aad u heshid warbixinadii ugu dambeeyay. intaan warbixintan mid kamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.